shirweyne isugu yimaadeen culimaa diinka iyo qaar ka mid ah wakiilada in ka badan 50 masaajid oo ku yaala dalkan Sweden loogana hadlayo sida ugu dhaqsiyaha badan ee loo sameyn lahaa olole si isku mid ah lagu gurmanayo dadka abaaruhu ay halakeeyeen ayaa lagu qabtay masaajidka Örebro ee dalkan Sweden. kulankan ayaa lagu soo bandhigay qatarta heerka abaartu ay gaartay oo ay dadkii dunyadiiba ay ku dhamaadeen waxaana ugu dambeyn kulankan laga soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob kuwaas oo la xiriiray in marka hore alla loo toobad keeno in qurbo joogta gaar ahaan reer Sweden ay ka qayb qaataan gurmadka si loo badbaadiyo walaalaha gaajada iyo oonka ay u dhimanayaan. lambar 1 in ummadda Soomaaliyeed ay toobad keenaan isna cafiyaan. lambar 2 in ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay u gurmadaan walaalahooda Soomaaliyeed ee abaaruhu dhibaateeyeen. lambar 3 waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka in ay u gurmadaan walaalahooda tabaalaysan. nuqdada ugu dambaysa ee afraad waxaan codsanaynaa in si sinaan ah loo gaarsiiyo gargaarka ummadda Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq. culimadu ka soo qayb galay iyo mas'uuliyiinta maraakista ka soo qayb galay shirkan lagu qabtay magaalada Örebro maanta maaragtay hawsha adag qabtay bayaanka soo saaray aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir fara badan iyo khayraad Allah idinka siiyo. waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed abaaraha aarab Allah idinku bedelo. waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dad wanaagsan oo cadaaladda iyo khayraadka iyo walaaltinimada ku dadaala Ilaahay inuu naga dhigo subhanahu wa ta'ala. dadka gacantooda ay ku dhici doonto amaanadana Ilaahay inuu amaanada u fududeeyo subhanahu wa ta'ala oo ay u danqadaan shacabkooda Soomaaliyeed dadka masaakiinta ah xoolaha la bixiyo dad waxa weeyaan naafa maato caruur hooyooyin dad aad u liita ayaa iska leh. waxba ma cuni karo waxba ma cabin karo haddii ay walaalaheena Soomaali maanta ay haraasan yihiin oo ay xoolahoodii ka baaba'een oo ayna cunto haysanin cunto inama dhamayso. sadarteed waxaan ummadda Soomaaliyeed ee Sweden degan iyo qarbiga bisifa caama yani wadamada galbeedka in ay arintani si aad ah ay ugu istaagaan. aanu duceeyno aanu la shaqeeyno ummadana aanu shaqeeyno abaaruhu waxa weyna qabsadeen Ilaahay u noqono quraanka iyo kitaabka iyo sunnada ummadda lagu baraarujiyo inay noqdaan dawladana waxaan ku faraxsanahay in ummadeeni ay maanta dawladii la shaqeynayso. kulan weynahan oo kii ugu horeeyay oo isugu yimaadaan culimaa diinka iyo wakiilada in ka badan 50 masaajid oo ku yaala dalkan Sweden ayaa waxa ay ka dambeysay dareenka damqashada leh ee abaarta taas oo keentay in laga soo safro gobollo kala fogfog si loo mideeyo ololaha gurmadka waxaana lagu ballamay in sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad degdeg ah loo gaarsiin doono dadkaasi abaaruhu ay halakeeyeen. Cabdiraxmaan Xudayfi raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Örebro Sweden.